waxaa magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareer soo gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaana halkaasi madaxweynaha ku soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareer, maamulka gobolka Daadmareer ka degmada Oodweyne cuqaal waxgarad waayeel. safarka madaxweynaha ayaa ku qotomay in dhaydheer uu ku yimi magaalada Oodweyne iyo xadhaka jarka mashaariic ay xukuumaddu ka hirgelisay magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareer. intaasi kadibna waxaa wafdiga madaxweynaha loo soo galbiyey xarunta dowladda hoose degmada Oodweyne halkaasoo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo madaxweynuhu kula hadlayay shacabka magaalada Oodweyne. waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay madax dhaqameedka iyo waxgaradka magaalada Oodweyne, qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: mudane madaxweyne, anigoo ku hadlaya afkii gobolka, waxaan kugu soo dhaweynayaa gobolkii Daadmareer oo ilaa xalay ilaa saaka loo ciyaar iyo dabaaldeg lagu diyaar garoobay. sidii aad arkaysay ay quruxda badneed ee gobolka Daadmareer kugu soo dhaweeyey. ku soo dhawow gobolkaagii, gobolkii halganka ku soo dhawow madaxweyne. soo dhaweynta ilaa Burco, ilaa Oodweyne, ilaa Ceergaabo aad kala kulmaysaa waxa weeye tii lagu yaqaanay Garxaj. waa magaaladii halganka, waa magaaladii aqoonta iyo caqliga, waa xoogii Soomaaliland. haddii aad doorashooyinkii u daahfurayso doorasho nabadgelya oo aan cadiifad lahayn baan wax kala qabanaynaa. mudane madaxweyne, halkan waxaan ka cadaynaynaa gobolka Daadmareer haddaan nahay difaaca dalka inaan ku garab taagannahay. waxaan leenahay sidaa lagu sheegay kuwa meelaha barabagaandha ka shumeeya madaxweyne ee walba Garxajisa daanaguba Garxajis baan nahay. waa ka caaqilkii hore yidhiyo adiga arkayo sidaanu haddii baydankeeda leeyahay kuugu taagannahay. ilaa intii Oodweyne uu dhisnaa wixii dowladda soo maray waxqabadkii koowaad adigaa yeeshay. waxa la 60 jirin laba goor lama wada khiyaameeyo. in badan baana la yidhaahdo riyaalaha hadaamiciga lahaade wadda la sameynaya waxba kama fuli. maanta anigu wadada waxba ka hadli maayo, laakiin waxaan doonayaa inaad gobol buuxa naga dhigtaan. aad iyo aad baan adiga waftidan ugu soo dhaweynaynaa, aad baan kugu soo shafaynaa, aad baan kal iyo laabaan kugu soo dhaweynaynaa. saaka gobolka Daadmareer afartii habeenimaalimi siday u kaceen iyo siday u istaageen iyo sida qalbi furnaanta ah iyo sida maxay ahayd caloosha ah iyo sida lagu rabo iyo sida weli lagu doonayo Daadmareer bay saaka ka muuqatay. arrinka kale doonay ka hadla waxa waa doorashooyinka. doorashadu insha Allah biidhnillaahi kariim way noo dhacaysaa, si wanaagsanna way noogu dhacaysaa oo qurux badan. waa qabadkii dowladda ay ka sheegteenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. haddii dadka wax la taro ee dowladda qaranka ee madaxweynuhu maanta halkan fadhiya waxaa loo tarto waxa weeye inay qarankeeda wax tarto. inay qabiil wax ku tartana maaha, dee qarannimo wax ku taraysaa. hargeysa markaa joogeen dee gobollada bariga waxaanu haystay waxyaabo dhibaato weyn ee ka taaganta. idindiro weyn baa gasheenoo leila Ceerigaabo waxaan filayaa inaad dariiq isbuusa socon doonto. ugu dambayntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoo halkaasi hadalka madaxweynuhu uu ku soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Mudane Siciid Sulu Maxamed. halkan waxaa madaxweyne ka dhacay qiraal wixii xukuumadda kulmiyeed madaxweynaha ka tahay ay u qabatay gobolkan Daadmareer. man laa yashkuru naas laa yashkuru Allah. waa tiriyo markaad ku mahadnaqdo waxa ku soo gaaraa ciddaad u mahadnaqaysaa inay ka sii badinayso. doorashada waxaan ku darayaa waxa waa dimuqraadi, ninka codka badan baa helaya. gobolka Daadmareer siyaasiga ku abtirsada ee doorasho doonaya ee wax kala ku dara ama calama faraafro waxa leeyahay maanta dhibaatooyinka jira weyn ogna. qarannimada la idinka biqi maayo. qaranka idinkoo aan weyni weydaan, qaranka aad dhisi weydaan, dayaadhis ayaa kala ku sii daynaysa. marka Daadmareer joogaan la hadlayo reer Daadmareer erayada qaarkood ka soo yeelaya saxaafadda ee siyaasiyiintu wadaan doonaya inay tilmaanta dadkan qaataan, dee anigu waan garanayaa ka yeeli maayo. laakiin dhalinyaradu dee waxaa run bay qaadanaysa. maanta qaranku wuxuu u baahan yahay waa difaaca iyo sharaftiisa in la soo celiyo. doorashada waxaynu u qabanaynaa nin walba wax tirsanayaba inuu ku bogsado oo aynu foodka ridno oo ka soo baxa aynu wada raacno oo waxa aynala gudboon maanta inaynu yeelno darteed baan doorashada u gelaynaa oo waxaasoo howla iyo xaqrasha lagu bixinaya. taasina iyo naga qaldame maaha hebel soo baxa
khilaaf dhexdeena way ku saareen waxaan leeyahay waa dhaamka ku badan halka biyaha in badan baa laga duuray lacagta ooduna biyada ku baxday ee hirgal weeday ilaa 2 milyan dhawey kan hirgal ma aha intaana waxaanu ku murmanay maalin walba waardhaam aan qodno iyo meeyay hal raadi waxba ma aha dadku inay biyo helaan baa badan in badan halkan aniga waxaan ogaaday biyaha in laga soo dhaamiyo burco dalka waxaa lagu qaybiyey horumarinta meel walba waxay baahan tahay kii cagaf baahire beerbeeraya ee roob haysta oran maayo u sina oo qolqolo ugu qaybiya tabiyaha meesha haradan biyaa la siinaya meesha xoolo badan xoolaha dhaqdan xoolaha dawadooda iyo dhulka oo loo xidho sida maaragtay saaraha burco kale oo dhulka uu ka dhaqmaayo oo hargeysi diiday oo imikareeyay saaraha burco kale loo xidho soo idinkii diiday ka dagaalamay xabada lagu riday marka la saaraha sabaan qoona waliba waxay u baahan tahay in loo sameeyo way marka waa waajib la faran dalkana insaan oo kala yaqaan duruufaha loo kala eego maanta si aan loo soo dhaweysay waxay bedeshay fikrad badan oo la qabay codku waa halkiisa waa laba tiim oo tartamayo midowga adiga yahay way naga xumaato qolqolo iyo waxba waliba dhalinyarada islaam waa mutacalimiin oo baalkan yar eegtay shaydaanka ah ay waxay ku soo deynayaan waxaan dadku kala gelin oo suurtagal ahayd bay sii deeyeen oo dadku maqlayaan marka maanta soo dhaweyn ma ahayn waxaa samaysan saxalku inuu ka baxo Soomaaliland oo dhan waa tala agoorta ma qaateen inaad mar hore qaataan bah waxa ka saarteen qaranka cadawgiisa inaad tustaan sheekada laga sheegay jiida dareed wax ay geeyaan oo ay abiye isru ahaayeen midna ay ahaayeen labada hadda maanta cadayseen hogaamintii qaranka difaaciisa iyo wanaagiisa inaad hogaanka qabtaan oo hor qaada balaga raba siyaasiga doorashada doonaya taasoo buu ku xidhaanaya taasaan u raacaya insha Allah intaasina way noo horgelaysaa ninka ku beerbeeraya doorashada qaban maayo kala qabanayo waa habeerbeeri maare ay naga adka doorashada oo inuu ka taagi daray dhaqaalaheeda dhibteeda ma jirin laakiin inuu ku midowno doorashada qaban oo cadawga lagu qoorjiyo marka ayaan qashqashaada marka daba keenay mar labaad waa idin mahadnaqayaa odayaasha iyo degmada gaar ahaanna waxaan u mahadnaqayaa habaryarahay waa maxamed axmed cawil maxamed joker telefishinka caalamiga saab magaalada Oodweyne maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121